xuska nabigeena maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee ayaa ah mid weyn waxayna ku weyn tahay ummadda islaamka meel walba ay joogaan tanina waxay ka mid tahay weynaynta nabigeena maxamed lagu weynaynayo waxaana ka soo qayb galay munaasabadan balaaran ee lagu xusay dhalashada nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam mashaayikh kala duwan iyo madaxda ugu sareysa dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan golaha baarlamaanka ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم waa gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka codsaday ka soo qaybgalayaasha munaasabada lagu xusay dhalashada nabigeena maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee in mar qura la isla wada qaado salliga nabigeena maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee سيد الكونين بالعربي وبالعجمي waxaana madashaasi lagu weynaynayay nabigeena maxamed maalintii uu dhashay ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo ku-xigeenkiisa Jeelaani Nuur Iikar sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta haweenka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir iyo mashaayikh kale oo ka soo qayb galay munaasabadaasi lagu xusayay dhalashada nabigeena maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ugu horeyn gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa halkaasi ka soo qayb galayaasha wuxuu ugu sheegay isagoo ku hadlay afka baarlamaanka Soomaaliya in bisha Mawlid ay u aqoonsadeen ciidaha qaranka Soomaaliyeed uu leeyahay sanad kasta la xusi doono maanta aad maqasheen ilaa shalay ila doqaato in maalinta mawluudka uu yahay uu noqdo maalin oo ka mid ah ciidaha qaranka Soomaaliyeed inuu noqdo ugu dambeyntiina xubno ku hadlaya guddiga qabanqaabada xafladda mawlidka ee Muqdisho lagu qabtay maanta iyo waliba mashaayikh kale oo isugu soo baxday ayaa halkaasi dareenkooda ka cabiray waxa lagu kulmo waxa uu fiican waa taas nabiga wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam kullu sababin wa nasabin munqati'un yawm al-qiyamati illa sababi wa nasabi xuskan lagu weynay dhalashada nabigeena maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa ah mid mudan in la xuso waxaana laga xusay guud ahaan dalka Soomaaliya waxaana halkan isugu yimid mashaayikh iyo madax ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo weynayay maalinta uu